qofkii aanan qiimeynin qiimaha noloshiisa ay hooyadiis ku leedahay ma hela asagana qof qiimeeya qiimaha noloshiisa. wiil dhakhtar ah ayaa waxa uu doonay gabar kadib markii ay ogaatay duruufta wiilka uu ku nool yahay ayaa waxay ku xirtay shardi midkaas oo ah in maalinta xafladda ay dhacayso inaysan hooyadiis imaan xafladda. wiilkii dhalinyarada ahaa arrintii wax uu ka suubiyo ayuu garan waayey. waxa uu nala tashaday wiil saaxiibkiisa aabihiis ahaana macallin jaamacadda wax ka dhigo. inta badanna asaga ayuu la tashan jiray wixii talahana waa uu ka qaadan jiray. markii arrintii uga warramay oo uu dhageystay waxa uu wiilkii weydiiyey maxay tahay sababta ay shuruudda ay kugu xirtay. waxa uu si xishood leh ugu jawaabay oo uu yidhi aabbahay waxa uu dhintay aniga oo sanad jira. intaas wixii ka dambeeyey waxa ay soo korsatay hooyaday. waxay masruufkayga ka soo saari jirtay dadka ay dharka u dhaqi jirtay. waxaa ka soo galay iyagu masruufi jirtay isla mar ahaantaasna waxbarashadeeda ka bixin jirtay. waxaas oo dhan waxay ahaayeen wax la soo dhaafay. mana rabo dib inay nolosheeda ku noqoto. haddana waxaan rabaa inaan aniga mustaqbalkayga dhisto. macallinkii ayaa waxa uu ku yidhi wiilkii waxaan kaa rabaa in dalab yar aad ii suubisid. markii aad suubisidna aad berri mar kale ii soo laabato. maxay tahay buu yidhi. waxa uu ku yidhi maanta markaad guriga tagtid waxaad suubisaa hooyadaa labada gacmood inaad u dhaqdid. sidii buu suubiyey. mar allaala markii uu si tartiib ah u bilaabay inuu u dhaqo gacmaha hooyadiis ayaa waxa uu ka soo daadatay ilmo. muuqaalka gacmaha hooyadiis iyo sida ay u egyihiin waxayna ahayd markii ugu horreysay oo uu fiiriyey amaba taabtay gacmaha hooyadiis. waxa uu dhaawac iyo nabar ka soo gaaray dhaqidda darteed. mar allaala markii uu sidaas u dhameeyey hawshii maba uusan sugin maalintii labaad waxa uu taleefanka ku wacay macallinkiisii. waxa uuna ku yidhi aad baad u mahadsan tahay waan gaaray go'aankaygii. hooyadayna marnaba kuma doorsanayo maalin sababtoo ah cimrigeeda oo dhan ay dooratay mustaqbalkayga. qofkii aanan qiimeynin qiimaha noloshiisa ee hooyadiis ku leedahay ma hela asagana qof qiimeeya qiimaha noloshiisa. haddaba dhegeystayaal qisadaas waxayna tusaysaa inaan ka dadaalno nolosha hooyooyinka. waad ku mahadsantihiin dhegeysiga qisada.